السلام عليكم daawadayaal waa bulmoog meediyaha bartaalka ka soo gudbiyo wararkii warbixinada ka dhacay dunyada ugu xiisaha badan waa 25 bishii shanaad 2020 maalinimo isniin waxaan warkeena ku bilaabeynaa iyadoo tirashada Mareykanka dhimashada dhinaca coronavirus cirkusiyo mareysa ayaa Donald Trump waxa uu ku mashquulsan yahay inuu ciyaaro golf dalka Falastiin magaalada barakeysan Qudus waxa ka socda xarxar loo geysanayo dadkii rabay inay ciid ku tukadaan halka Hong Kong iyadana waxa ka socda dibadbaxyo lixaad loo isdaba jooga fadlan hadda markii ugu horeysay aad soo booqato channelka subscribe saar gambaleelkana fursi aad noola socotid haddaba waxaanu warkeena ku bilaabeynaa iyadoo ay dhimashada dalka Mareykanka ay 100,000 madaxa gelisay ayaa waxa la leeyahay madaxweyne Donald Trump waxa uu maalintiisa nasashada ama maalinta hadda weekendiga uu ku qaatay ayaa la yiri inuu ciyaaro golf isaga oo ay ahayd ay leedahay saxaafadu inuu ama kiniisadda tago oo booqdo amaba uu dalkan oo xaaladiisu ay ka sii dirayso dhinaca coronavirus oo hal keena ayaa waxa la yiri waxa uu madaxweynaha kala qiimo batay inuu ku qaato inuu ciyaaro waxa loo yaqaan golfka oo uu halkaasi ku madadaasho dad careysan ayaa isu soo bax muujiyay iyaga oo boorar ku soo qorayay hadallo kala duwan madaxweynahan ayaa waxa lagu xasuustaa xilligu campaign-ka ku jiray inuu Obama ku eedeeyay inuu yahay mid waqtigiisa inta badan ku lumiyay ciyaaridda waxa loo yaqaan golfka kaasi ahaatee waxa la leeyahay intii uu xilka hayay Donald Trump waxa uu in ka badan 3 jibaar oo golf ciyaara ayaa la leeyahay ama waqtigiisa ku lumiyay iyadoo tirada lagu qiyaasay 365 jeer inuu ciyaaro golfka ama uu ciyaartan golfka uu aadka u jecel yahay xilliyada hadda uu indiga ku qaato halkaas magaalada barakeysan ee la yiraahdo Qudus ayaa waxa ay dadkii damcay inay tukadaan salaada Ciidul Fidriga waxa halkaasi hor istaagay ciidamada booliiska ee dalkaasi Israa'iil sida caadadu tahay xilli walba waqtigan oo kale Israa'iil waxa ay cadaadis ku saartaa dadka muslimiinta ah ee doonaya inay ku tukadaan masjidka barakeysan inay u geystaan xarig iyo dhib iyaga oo halkaasi isugu keena ciidan aad u xoog badan si ay u kala eriyaan dadka damcaya inay ku tukadaan halka amaba ay ku qaataan salaada Ciidul Fidriga iyadoo xilligan adduunku uu ku jiro xaalad kala carar ah oo cudurkan coronavirus ay dadku kala baxsanayaan amaba meel walba la geliyay lockdown ayaa dad iyagu ka dhaga adeegay markaas oo doonay in halkaas ku tukadaan waxa hor istaagay booliska dalkaas Israa'iil iyagoo sida aad muuqata halka ku sameynaya qabqabasho oo aanay u kala aabiyeelin dadka waxaan kaloo ku jirnaa wararka bariga dhexe dalka Israa'iil caasimadiisa Tel Aviv waxa ka socda mudaharaadyo lagaga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha talada dalkaasi haya ee Netanyahu dadka ayaa waxaad moodaa inay sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa nacaybka ay u hayaan ra'iisul wasaaraha iyaga oo ku muujinaya shucuurtooda inay soo qaataan boorar ay ku qoran tahay hadallo in uu siirku yahay nin dambiile amaba uu yahay nin aan la dooneynin in talada dalkaasi hayo sida aad muuqdaan boorarka waxay ku soo qorayaan crime minister oo micnaheedu yahay wasiir dambiile dalka Jarmalkana waxa ka socda isagana dad doonaya inay muujiyaan dareenkooda ay kaga soo horjeedaan waxa loo yaqaano lockdown-ka muddada badan saaraa dunida iyaga oo dadkani ay yihiin dibadbaxyo careysan oo raba inay jabiyaan sharciga u yaala ee dadka inay ku sugnaadaan guryahooda xilligan coronavirus-ku adduunka wali aanu ka bixin ayay dadkan ka dhaga adeegeen iyaga oo raba inay magaalada iska maraan amaba ay daneystaan magaalada Moscow-na waxa kala xiray xaafad dhan nin qori aad u dhacay oo darandooriya la fuulay dhismo aad u dheer kadibna soo tooganaya dadka wadooyinka dhismaha ku hareeraysan maraya ninkan oo aan la sheegin sababta uu ku keenay ayaa waxa ay ku qaadatay booliska dalka Ruushia inay ninkan gacanta ku dhigaan muddo 6 saacadood kadib markii uu dabaq aad u dheer fuulay isaga oo rasaas badan la dhacay dariiqyada dhinaca mara dabaqa uu saaray yahay baabuurta iyo dadka halka marayna kala eriyay walow aan la soo sheegin wali hadeer dhimashada iyo dhaawaca uu geystay hase ahaatee waxa dhawaqa rasaasta uu ku kala eriyay ayaa la yiri ama wadooyinka uu ku kala xiray muddo ku dhawaad 6 saacadood tano ka dhacdo dalka Moscow marmar dhifa ayaa waxa la leeyahay xilligan ay ku soo beegantay oo lockdown uu dunida ku jirto
waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal boqortooyada dalkaasi Hong Kong ee ah mandaqad ka tirsan Jaynaha oo kuna biirtay amaba uu xoog Jaynuhu ugu wareejiyay dalkaasi Ingiriiska 97 ayaa waxa iyadana la sheegayaa in tan iyo xilliga uu bilaabay cudurkan COVID-19 ama waxa loo yaqaan lockdown-ka oo dunida lagu kala xanibay dadkuna ee lagu amray inay guryahooda joogaan ayaad moodaa dadkan ku nool Hong Kong inay si siyaasadeysan u bedelaan iyadoo dowladda Jaynaha ay ku eedeynayso ayaa la yiri in ay arrinkan ka dambeeyaan wadamo shisheeye ah oo ay dabada ka soo riixayaan maalin walba inay mudaharaado ka dhacaan Hong Kong loogana soo horjeedo dowladda dalka Jaynaha ayaa la leeyahay mudaharaadyada oo ah kuwa aan kala go'leyn ayaa booliska dalka Jayna dhammaan waxay awoodooda isugu keeneen sidii u kala eri lahaayeen dadkaasi marka kuwa qaada shidaalka oo laga leeyahay dalkaasi Iran ayaa waxa uu si nabad ku geeyay shidaalku siday ariga Venezuela waa boolmo weyn iyo kulanti dama oo hay salaam